رئيس الوزراء kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga siisay guud ahaan booqashadaada iyo joogitaankaaga galmudug iyo howlaha muhiimka ah oo aan halkan ku qabsoomay gaar ahaan shirkan iyo arrimaha uu ku saabsan yahay ra'iisul waxaan dhageysanay warbixintii aan ka dhageysanay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka warbixintii uu ka dhiibay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen galmudug sida wasiirku ku warbixiyey mudan ra'iisul wasaare abaar baaxad weyn ayaa ku dhifatay galmudug kadib markii uu dib u dhacay xilli roobaadka waqtigii roobka uu dib u dhacay ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu xaggiisa roobkii naga siiyo intaas kadib abaartaas aad dhegeystay ra'iisul wasaare oo saameynta intaa leeg yeelatay ayaa dalka ka dhacday waxaan ku siinaynaa kelmaddaadii aad halka ugu tala gashay inaad ka tiraahdo adoo xoogaal u ahaa abaarta iyo xogteeda hayey haddana si buuxda u dhegaystay marka ra'iisul wasaare ku soo dhowow annagoo aad iyo aad kugu mahad celinaynaa gacaliso waa ku salaam سلام الربيع أول عقتي بيلكي مانت lacagtaaga qiimo badnaa tani أنت السنة كنت براي ما أنت هداد العقهين أرجع يدافع معقول ما الحمد لله لا ما تسكلي yasar allah soo cus anu sheega hal xaji waxa way laba naad ku toosii shaaftaan u ka yarabaan marka xoogo iyo dulqaad بار حلق وهاي ما كل ما أخبار فرحت لهم كوا هاي ترى عنا أخبار فرحت لهم كوا هاي يشك هذا إذا ما هو حرت وراها ضاع أخبار فرحت لهم وش أو كوجو ليس سامتينها وحن كوجو ليس هنا أويا يقصد مرض ما برونيس وبجاج كوجو ليس قول ما أنا كنت أدين دم بيما برونيس أنا كنت هذا كبعد دجاج كنت دجاج بجاج lacagtan kale saariga hay farxad ii sheeg anna waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kala badan